السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامجك محا حلقة ما أنت سؤاشا عن طلاب كبحين وحيتهاي وحوليه ولكن سيدين مالين تيدا وقول لقى مالين في فرعون مالين نشاط iyo maalin يعني حاجز aan lahayn maalin wahsi aan lahayn maalin يعني qurux badan isla markaa waxyaalaha niyada iyo himilooyinka ay tahay in aan sameeyo buu leeyahay waxaan isleeyahay waxay tahay marka koowaad hal shay ila ogow kadib ayaan talo iyo ximad ku siinayaa maanta waxay bilaabatay shalay ee ma bilaawanin maanta waxay bilaabatay shalay ee ma bilaawanin maanta haddii aad fikirkaas aad aamintid maalintaada wax wanaagsan baa helaysaa himilooyinka inaad fulisid oo qof fircoon aan naqatid qof yani nashaad naqatid qof aan caajizi wahsi ku jira aan naqatid taas aamin maanta waxay bilaabatay shalay xalay markaa seexanaysay maxaa ku seexatay haddaa ku seexatay wax qabad la'aan haddaa ku seexatayna wax dhan samaynin berito يعني ما أنت هذا حد أنا كوشيري ما أنا وحين قنيسة يعني في فرعوني آن لهين لا حلا دا كوجيفتي قف خدخاخ بدنا قنيسيد وحلا أنا سمين دون وحنا سمين دون وحنا سمين بعد إن شاء الله تعالى كدب ما أنت ما أنا قرح بدنا قنيسة ما أنا جدول يسمى ما أنا قرش يسمى بين قنيسة لكن قف ما أنت يعني حالة كوس وحنا كوسيحانين أو وحبري سمينا أما وحيالها خاكود نيديس كوجرن أو dhibaato waxay keenaysaa waxay tahay in yani suwaxda aad iska jiiftid caajis sareed iska saaran tahay wax qabad la'aan iska soo kaca television maanta dhan fiirso taa waxay keenaysaa waxay tahay cidle kugu keenaysaa waxay kugu keenaysaa wahsi qof oo daali caajis kugu keenaysaa lidaalika maanta waxay bilaabatay shalay ma bilaawanin maanta taa fikirkaas amin insha allahu tacaala taasi waa talada koowaad labaad waxay tahay marka aad soo kacdid oo hurdada ka soo kacday xitaa culimada psychology ay bixiyaan talooyinkan way ku jirtaa hurdada ka soo kacin kaanama qof oo xabad lagu soo tuuro oo kale qof laga nixiyo kale hurdada uga soo kacin yani hurdada marka ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu soo celiyo ruuxda isla marka isha kala qaad ama aadanad inaad soo kici rabtid marka isha kala furtid neef qaado 20 sekin neef qaado sababtoo jirkaaga xalan way daalnaa jirkaaga xalan si kale buu u shaqeynaya xalay yani qaarkood yani shaqado si kale bay ahayd lidaalika ha soo boodin ama ha qabsanin waxyaala kale ama ku bilaaban qaylo taana waxay keenaysaa waxay tahay in maanta in qata maalin khaldan wax la mid ah qaarkiin waxaa ku bilaaban markaa soo kacan isla markii mobile may inta mobile xataa aadan furin waa in aad 20 second neef qaata 20 second marka labada talo sameeysid saddexaad maxaa sameynaysaa ala isla hadlaysid waxa dhihaysaa waxay tahay maanta way ka fiican tahay maalin kasta shalay birito maanta ayaa ah maalinteeda way ka fiican tahay maalin kasta maanta ka fiican tahay waa taas aan nida u sheegtaa marka soo kacdid isha kala qaadid 20 second aan neefsid nafsada waxaa u dhahdaa waxay dhahdaa xitaa maanta way ka fiican tahay maalin kasta marka talada aad samaysid kadib mobile qabsanaysid ama message qaarkood wixii taa dib ma lahan insha Allah taala qofka dhaqankiisa ku xiran tahay laakiin talada aan bixina waxa kamid ah marka kadib aad soo kacdid qabiiso ama markaad caadaystid isla markaa ama aad soo weys qaadatid wixii la mid ah taa oo dhan nashaad jirka gelinaysa kadib intaadan cabin kabachin intaadan cabin shaah intaadan cabin qaxwo biyo cab biyaha waxay keenaysaa waxay tahay jirkaaga inay xayawi geliso nolol fiican ay geliso kadib insha Allah taala ama quraac yani fiican ama kabachinki talooyin waxyaala adiga aad jeceshahay oo caafimaadkaaga u fiican cun oona yani fiican sababtoo ah cunooyinka ugu fiican waxa kamid ah ay dhahaanba ugu muhiimsan cunooyinka afbilowga ama cunooyinka marka soo kacdid oo quraacda ay kamid tahay cunooyinka ugu fiican ugu caafimaad fiican loo baahan qof kasta ani adiga xitaa ana ilaalina cunooyin fiican ka dhigan insha Allah taala way kamid tahay markaas kadibna waxaan isleeyahay waxay tahay marka guurka bixaysid adkaarta subaxdii akhri ilaahay waxaan ku weydiisanayaa maanta wanaageeda iyo khayrkeeda waxaan ka maangelayaa maanta iyo sharteeda
وأذكار دعوين سوح الأخست كم التحي إن شاء الله تعالى سكود ذال وحنرجينا يا وحيت أن ما أنت نقطه معلم في عن إلى سبحانه وتعالى صار دقائق قفك علن كربجيو إلا إلى سبحانه وتعالى وناك قوة فجيو خير وناك بعد رجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.